السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan dhammaan asxaabtan ugu xiran runtii waxaan rabaa maanta arrin xasaasi ah inaan isku taagno runtii ilaahay khayr ha siiyo dumarkeena ilaahay ha wanaajiyo intii burbur iyo balaayo ay dhacaysay intii qax iyo qaxooti u dhacayay intii balaayo ay kala socotay wixii wada dabcan rag buu ahaa haweenka Soomaaliyeedna dabcan waxay ku hawlanayeen yani la daala dhacayeen nolosha iyo ubadka korintiisa iyo waxaan oran karnaa qoysaska Soomaaliyeed sida u burburka u dhacay iyo wixii ka horeeyayba boqolkiiba 80 dhismihiisa iyo wanaajintiisa iyo masruufkiisa yani qayb lixaad leh bay ka qaateen dumar oo dumarku waa wax kaliya maanta aan oran karno dalka waa ku taagay maxay yeelay dhibaatada la soo maray dumarku qayb kama inaan ahayn waxay qayb ka ahaayeen xalka bay qayb ka ahaayeen dhibkan ayaa waday rag baa waday dabcan wixii isleeyay rag bay ahaayeen wixii hadii ay ku isdooxay rag bay ahaayeen wixii habeen iyo maalin waxa weey laga harsan waayay laga jiifan waayay laga hurdi waayay rag bay ahaayeen wax ilaa iyo hadda taagan ee ogtihiin meesha ay wax marayaan u ololeynaya ee wada ee dabka horinaya waa rag marka ilaahay dumarkeena ha karaameeyo ilaahay waxa weeye khayr ha siiyo baan leeyahay runtii hadii la yiraahdo dumarka Soomaaliyeed dhibta loo geystaa maanta hala sheego maanta hadii la dhoolaa hala faaqido runtii waxyaabo fara badan oo ajaa'ib la soo bixi lahaa laakiin waxyaabo fara badan oo qarsoon baa jira waxana u jeedaan waxyaabo ka daran oo qarsoon baa jira oo loo jeedin on kaamiradu qabanayn shan nin intii gabar lagu kufsado in la yiraahdo haddana odayaashii iyo dadkii wax garadka iyo garaadadii iyo dadkii maanta aqoonta yani iyo garashada iyo garaad micnaheedu waa qofka bulshada ka dambayso oo ugu dambayso maxay ugu dambaysaa aqliga qofka ugu waaya aragnimada aqliga yani garaad micnaheedu wasaasay ka dhigan tahay odaygii reerka soo istaago cimaamadiisa soo qaato leeyahay hadda waxa weeye anagu waxaanu lahaan jirnay dhaqan hidiyo dhaqan baa jiray waxa weeye xeer baa jiray waxa weeye halkaan bay ka dhacday marka waxyaabaha nasiib darrada ee arrimahan dhacaya yani aan oran karno baarkii u firayaan aan oran karno arrimahaas inay sii socdaan bay keenayaan bay kamid tahay qofkii dhib ka geystay shan nin oo dhib geysatay oo qof dumar u geystay oo wixii markhaantigeedii lahayo oo ayagu ay qiranayaan baa meeshii la maxkamadayn lahaa oo cadaalada la marsiin lahaa baa waxaa la leeyahay xeer jajab iyo haddii alla kuu roon yahay oday hebel berbi wasaa wax kusoo dhaqi jiray baa hawshii lagu dhammaynaya hadda markaad ninkii dhibtaas geystay ee weli sidiisii ah een dhaqan celin loo samayn een bulshadii haddii alla kuu roon yahay iyo dhaqankiisu banaa iyo diintii aan waxba laga barin had sidiisii bulshada loogu sii dhexdaayo dee bahashu meeshii bay kasii socon birina dhibtii u geystay dhib la mid ah baa haddana meeshii taalla marka waa cudur aan la rabin in la daweeyo cudurrada waa lala tacaalaa cudurrada sidaad ogtihiinba waa lala tacaalaa Soomaaliya waxaa ka jirta laba cudur oo aan ugu talagelinba in la daweeyaba bulshadu way u jeedaa inuu cudur yahay way u jeedaa waxaan inuu kansar yahay way u jeedaa waxaan inuu dhibaatadiisu badan tahay way u jeedaa waxaan inuu u baahan yahay wax ka qabasho cudurrada aan la rabin marka in la daweeyo waa laba cudur waa cudurka koobaade waa cudurkan hadda aan u jeedo oo ah in haweenka la xaqiro hoos loo dhigo mana aha wax maanta dhacay mana aha runtii waxaan dhahayno maantuu bilowday ama shalay bilowday ama daraad buu bilowday runtii ma waa waxaan oran karno waa wax soo jiray waa wax soo jirtay oo soo jiitamaysay oo dowladnimada Soomaaliya ka horeysay dabcan yani salka ku haysa xoolo dhaqatanimadii Soomaalida iyo reer guuraanimadii Soomaalida iyo dhaqamadii horhoray salka ku haysa tusaale yar idin soo qaado mahmahyada Soomaalida iyo burtida Soomaalida iyo gabayada Soomaalida iyo dhammaan maansooyinka Soomaalida hadda dhex gasho waa bad baan dhihi karaa arkimaysid meel rag lagu dhaleecaynay hadda waa dhif iyo naadir laakiin haddaad maanta dhahdo dumar runtii waxaad arkaysaa dumarka waxyaabo fara badan oo ku taxalluqa wax looga sheegayo oo looga sheegayo tusaale mahmahyada la yaab kale waxaa kamid ah la soo qaato marka dumarka loo mahmahayo ama la rabo in ama xumaan loo yeelo waxaa kamid ah maray reeray u talisay iyo mow dameera la saaray murug baa u dambaysa waa mahmahyada la yaab kale oo dabcan markii dumarka la rabo in la duro loo soo qaato waxaa kamid ah dumar waa caruur cag weyn diinteena meel kaga taalo dumar waa caruur cag weyn ba jiro sunnahuna nooma sheegin kitaabkuna nooma sheegin boqolaal gabdhood oo waxaan yani jira ama kumanaan baan dhehe oo ragoodii intay wax matarayaan noqdeen ayagu shaqadii guriga iyo shaqadii banaanka isku haya waxaa kamid ah mahmahyada kaloo la soo qaato dumar u samir ama ka samir waxaa laga dhigayaa culayska sideedaba culays hadduu yimaado ama dhibaato timaado ama wax walbo xuni hadduu yimaado gabadha unbaa la saaraya soo ma jiro soo ninku khalad kama dhici karo soo gabadha ma khaldami karto soo ma jirto mar ninka loo sabro waa jirta mar waxaa jirta sideedaba reer hadduu dhisan yahay wuxuu ku dhisan yahay labada
labada qof mid dushiis baa lagu socdaa laakiin maamadan waxay noo tusaysaa in mar walba ninka dushiisa lagu socdo in mar walba kan samraa uu ninka yahay aysan dumarku samir lahayn aysan dumarku dulqaad lahayn aysan dumarku wax sugid lahayn aysan dumarku abaal lahayn wajida dumar u samir ama ka samir bal u fiirso ninkii meeshaan lama keenin already isagu waa ceeb ka saliim waxa jirta maamaha kale waxay leedahay naagi waa balaayo loo baahan yahay waa balaayo loo baahan yahay bal u fiirso maamada nin waa balaayo loo baahan wax balaayo la xiriirana la soo geliya ma jirto maxaa ku duugan meeshaas tafsiraadeeda ay idin dhaafo waxay leeyihiin dumar iyo caruur la iskuma ciyaar baro hadan ku weydiinayaa haddad xaaskaaga la ciyaari weydo yad la ciyaaraysaa waa dhaqamada aan wanaagsanayn ee ku jira Soomaaligeena ku jira bay ka mid tahay maamayada aan wanaagsanayn ee sax ahayn ee Soomaaligeena ku jira rasuulka kaleey salaatu wasalaam haweenkiisa waa la kaftami jiray waa la ciyaari عائشة رضي الله عنها وكمل أمهات المؤمنين وحيلة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا بريت مجرمي دوركي هو أنا كديري ما دام أكفض الله دوركي ضم ما نطرتنا السجاي كديري ما فهم إيش ولا عيار جري ولا كفت مجري وهذا يا كفي عن إن كبرنا هذا ما حاسك على الله عيرته يا كفي عن يا محاك قروح بدن ما فهم إيش مرك إيه كرنا ونغم سوجرين إلا يحول التنمدي موجينيسا إن ولي أن لجود لولا باهي لجود بقول جود يعني إن لجود بأنا إقادنا يسوع وقت كتير إقادنا يسوع تصالح عن قبيلة هذا فيرنا إن صومالي ده سيد محمد عبد الله حسن حوليه بل قبيل إلى فيريه قبيل وديري هاي قبيل واحد تري سيد محمد عبد الله حسن سقو طبعا كنا عنانا يكون عن بارينية دد يدولة عربتو كبديه حوليه سيدكو وضيال جبوبة مربي جبن أهايين بحوشاجا كعين مربو جاننان جري نمان جوني إبديالن با geela soofsada ee buu yiri cudud male colkula weerar gala ciidan iyo xooge inkastoo cid ku soo diraan waa cid loo kale caloosha iyo madaxay sidii dumar aan toogaane maandow ayaa yirkayga daa عربي وناقة بولية بالفيري ليه ما إنه طبعا أنا قصو آخرة توسين ما إنه إلهي هون حريسته لكن sida gabayga ku cad ama ka dhadhamaysa dumar waxba loogu lama harin haday dhaliili jirto iyo hadii yani ay jirto door xul iyo hadii ay jirto hadii alla ku roon yahay garaafo dumarka waa loo geystay kad u fiirsto labada beed oo ugu dambeeya markaad u fiiriso inta arintu kuma eka bal sii wado Faarax Xuseen Sharmaarka muxuu leeyahay araweelo dumar oo dhan bay u aqli roonayde iyaduna awoogeed la naarma arin fiicnayne goortii ugaas laga dhigaa ololay suurkii nimankii amiirka u xukumay qorihii eebere waxay tiri hadaan laga ilayn way ajeelayaane aqli naaqusyaashii boqraday oo yadabadeed arinkeeda waa lagu lumaa oori caana leh bujir meeshan u dalneenay waa beedka ugu dambeeya arinkeeda waa lagu lumaa oori caana leh bal u fiirso gabaare kulama talin karto meel diinteena kaga taalo ma jirto rasuulka kaleey salaatu wasalaam haweenka qaar kamid ah tali oo taladooda waliba guul lagu gaaray marka haday gabadhaadu intay kula talisa tala fiican ku soo jeedisa waxan maaha diinteenuna ashuura bay ina farisa hala wada tashto arin hadaad maqasho micnihiisu waa talo dabcan abwaanka ama ninka gabayga tirinaya Faarax Xuseen soo doon isagu hawlo jeedo laakiin arin marka la micnaynayo arrimin waa labo waa u talin arin oo ah talo arin baan qofkaas weydiinaya tusaale qofkaas talan weydiinaya bay ka dhiganta dadkaas waa loo arrimiyay hadda tirada dadkaas waa loo taliyay bay ka dhiganta marka isagu soo doonaba hawlo jeedo gabaygaasna waa jira asi wade Cabdi Iidan Faarax muxuu leeyahay wuxuu yiri habartii docdeedii iyo dagalkay ku nooleed daruuruhu ku horeen dadku wada helmoodiyo dad wala lacabay tiri isna talada kuma darin inuu duub abaariyo gobol lagu darleefiyo degmo lagu haraadiyo darxubooyin muuqdaan dirqi ku nool u badan tahay dan yartiya shaqaaluhu daasad garaw agadan karin malaha talada kuma darin waa dumar yeelkeed geerarkan dheer uu abwaanku tirinayo waa meesha ugu dambaysa oo ah waa dumar yeelkeed bal u fiirso awal ba hadii isaas u fikirto misaalka ama tusaalaha sheekadan sheeka si caadi u dhacday maaha si caadi oo loo hayo oo qisadeed u dhacday ma waa sheekadii oo yani sheeka xariirada Soomaalida dabcan waxyaabo fara badan waxa jirta sheeka xariir laga sameeyay sida dhegdheer dhimatay oo kale sida hadii alku carraweela oo kale sida waxyaabo fara badan waxa jirta sheeka caruureed ama sheeka hawleedii laga sameeyay waxaan la ugu dambeyntii lagu soo gunaanadan lagu muujinaya tii awalba waxa la hadii soo u fikirtay laga tusaas noqday awalba dumar bay aan soo gunaanado warku ila dheeraanine aan soo duuduubo arrinkan runtii waa arrin soo taagnaa soona jiray dhaqan ahaan iyo wax umada lafaha ka galayna ay tahay labada arrimood oo ugu daran oo caadada noqday umada lafaha ka galay oo runtii labadaas cudur hadii la daweeyna astii laha maanta Soomaaliya noqon lahayd ee aan oran karo waa labadaas arrimood
oo dulmiga ah ummadda laga qabto hana loo kaco caamiyo culimayaan loo kala harin waa arrintan ah dumarka Soomaaliyeed haddii alla ku roon aan ognahay qiimahooda la qiimo dilay runtii sharafkooda la dhaawacayo haddii alla ku roon yahay waxa la mindi ninka kugu dhuftay iyo ninka kugu dhaqdhaqaajiyay kii kugu dhuftay ma aha kii kugu dhuftay waa ka tagay laakiin mid kale intuu yimid kugu dhaqdhaqaajiyay keebaa daran bale saali kii kugu dhaqdhaqaajiyaa daran intii gabar Soomaaliyeed la kufsado haddana hawsha lagu soo gabagabeeyo walaal xalaalayso ama haddii lagu soo gabagabeeyo walaal xeer beegti baa jirtay iyo xeer jajab baa jiray runtii waxay kamid tahay dulmiyada waaweyn ee dalkeena ka jira wax ka qabashadan u baahan laakiin dadku yaraysanayaan aad loo yaraysanayo dulmiga labaad oo dalka ka jira waxay tahay waxa loo yaqaan qabaa'ilaad qaarna la yiri yani qawaab buuxdaan qaarna la yiri waa ma buuxdaan half batin la yiri waa dulmiga labaad isaga waa labada dulmi oo Soomaaliya ka jira oo boqolkiiba boqol la wada og yahay umadu wada og tahay saqiir iyo kabiir bal la og yahay laakiin haddana aan lagu talagelin wax ka qabashada cid ku tala gashay iyo cid u istaagtay iyo cid hadda u soo socota xataa aynan muuqan dawlad iyo shacab midna wax u soo socda iyo wax ka qabanaya midna aynan jirin oo midna waa ka Soomaali iyo habeen iyo har iyo dharaar waxaad maqlaysaa qof dumar la dilayo odageedii baa dilay oo muxuu ku dilay wallahi $20 buu weydiistayo ma heli karee bay tiriyo markaas qoorta ka jaray baa la leeyahay fiiri 5 midyuud buu ku dhuftay way dhibatay qor baxday baa la leeyahay waxa lagu leeyahay mid madax loo galiyay baa darad waxa laga soo heray baa lagu leeyahay laamiga dhiciisa waxa lagu leeyahay mid waa 5 lagu kufsadayo maxkamad baa la saarayo hadda waxa lagu heshiiyay markii dambe in hawshii la gabagabeeyo oo hadii la ku rooyo hawsha xal mastuur lagu dhameeyo baa lagu leeyahay oo mid halkaas ay martay ilaa ay hadda inay taaganta cid u soo socota iyo cid u soo jeeda iyo cid rabta inay wax ka qabato ma jirto الله wax ka baryeena umada xaq tuso tan labaadna waxa loo sameystay waxa la yiraahdo 4.5 waaba dastuurkeedu ku jirtaayo dicilku waaba la isku afkartayo طبعا markii af mishaarada iyo siyaasiyiintu iyo ka hadlayaan waa kuwa yiraahdo xaq ma ahna waa xal maamarna waxa loo sameeyay la yiraahdo xaq ma ahna waa xal waa mahayadii dambe dalka ku soo biiray oo dabcan ay dhashay dulmigu dhalay kamid ah runtii marka waxaan leeyahay guntiyo gunaanadka ilaahay umada xaq ha tuso dumarkan Soomaaliyeed aan dhowrno dumarku waa kula dhasheen waa ku dhaxan waa ku dhaleen wad dhali doontaa nina ma jecla gabadha uu dhalay in sidaas la yeelo nina ma jecla gabadha la dhalatay in sidaas la yeelo nina ma jecla eedadiis in sidaas la yeelo dumarka aynu xaq dhowrno ilaahay xaq hayna waafajiyo mawduucan halkan ku egahay walaalkiin Saacid Xaaji Aadan iyo bahda Saacid Tube oo mar kale idin leh intaan mawduucan mid lamida ku kulmi doono wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh